kooxda al-shabaab ayaa subaxnimadii hore ee saaka waxay weerar ku qaadeen deegaano hoostaga gobolka Shabeellaha Dhexe. Faahfaahinno kala duwan ayaan idinkaga haynaa dagaalkaasi khasaare kala duwan oo la sheegayo in uu ka dhashay ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa. Sheekh Shariif Sheekh Axmed Goordhow waxa uu ka digay gudaha magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ah dowlad goboleedka Jubbaland halkaas oo uu ka furmayo saacadaha soo aadan shirka golaha samata bixinta Soomaaliyeed oo ay ka qayb galayaan xubno kala duwan. Wararkaas iyo kuwa kale ayaan halkan idinkugu haynaa ee saaxiibayaal soo dhawaada haddii ay tahay marka ay kugu horeysay aad soo booqatana waxaan ka codsanaynaa saaxiibada la sii wadaagto qaybta hoose ee faladan aragtida nagula wadaagtaan mar kale soo dhawaada saaxiibayaal. aynu ku bilowno dhinaca gobolka Shabeellaha Dhexe dowlad goboleedka Hirshabelle subaxnimadii hore ee saaka dagaal khasaare kala duwan sababay ayaa la tilmaamay in uu ka dhacay halka lagu magacaabo Nuurdugle oo kamid ah gobolka Shabeellaha Dhexe dowlad goboleedka Hirshabelle. wararka aan helayno iyo xogaha aan soo xiganayno waxa ay sheegayaan in dagaalka uu u dhaxeeyay dagaalamayaal ka tirsan kooxda al-shabaab iyo sidoo kale ciidanka sida gaarka u tababaran ee commandoska danab xooga dalka Soomaaliyeed kuwaas oo ku sugan gudaha deegaanada hoostaga gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan halka lagu magacaabo Nuurdugle oo kamid ah deegaanada inta badan kooxda al-shabaabku weerarka xoogan ay ku qaadi jireen inta badan marka laga soo tago maalmaha kale ee caadiga ah waxa inta badan weeraradan tooska ay dhici jireen xilliyada subaxii ah oo ay inta badan weeraradan fulin jireen. kooxda al-shabaab ayaa lagu soo waramayaa in iyaga oo abaabulan weerarkan ay ku qaadeen Nuurdugle halkaas oo ciidamadan sida aan idin sheegay ay ku sugnaayeen khasaare kala duwan ayaa halkaasi ka dhashay kadib dagaal xoogan oo ay markaasi ku qaadeen kooxdu oo la sheegayo in markaasi lagaga hortagay saraakiil ka tirsan ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku sugan gudaha deegaankaas ee Nuurdugle waxa ay sheegayaan in dagaalku uu ahaa mid aad u xoogan sidoo kalena uu ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ilaa iyo haddana aan si rasmi ah loo xaqiijin karin laakiin waxa ay tilmaameen in horjoogyaal sarsare oo kooxdu hogaaminayay sidoo kalena qayb ka ah dagaalkan saaka ay ku hoobteen gudaha deegaankaas Nuurdugle ee gobolka Shabeellaha Dhexe. waxaa la warinayaa in dagaalka oo ahaa mid aad u xoogan khasaarihiisa aan la soo koobi karin ilaa iyo haddana ciidamadu ay wadaan baaritaano iyo sidoo kale meedad la sheegay in ay doorka ka baadigoobayaan. lama oga halka uu gaarsiisan yahay faahfaahinta Nuurdugle oo gobolka Shabeellaha Dhexe dagaalka ka dhacay lama se oga in kooxdu ay damacsaneed in guud ahaanba ay gacanta ku dhigto deegaankan. ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa commandoska danab ee xooga dalka Soomaaliyeed ayaana la warinayaa inay si rasmi ah gacanta ugu hayaan hadda deegaankaasi Nuurdugle ee gobolka Shabeellaha Dhexe. xogo qaar aan helayno ayaa sheegaya in dagaalka uu ka dhacay duleedka deegaanka lagu magacaabo Nuurdugle halkaas oo ay isku farsaareen dhinacyadan waxaana saraakiisha ciidamada danab ay tilmaameen kadib markii ay xogtan heleen banaanka magaalada ay kaga hortageen. kooxda al-shabaab ayaa muddo la sheegay in ay diyaarinaysay weeraro ka dhana deegaanada dhowrka ah ee gobolka Shabeellaha Dhexe ay ku sugan yihiin ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ee commandoska danab waxaase maalmihii la soo dhaafay la warinayay in arrimahaas iyo arrimo kale oo dhowr ahba ay ka wadeen dhaqdhaqaaq ciidan oo aad u xoogan ay ka wadeen duleedka deegaankaasi Nuurdugle iyo meelo kale oo gobolka Shabeellaha Dhexe ka tirsan. ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed dankooda saaka waxa la warinayaa inay bilaabeen dhaqdhaqaaq aad u xoogan oo ay ku doonayaan inay ku dabagalaan raggii shabaabku ahaa ee weerarkaasi ku ekeeyay deegaankan lagu magacaabo Nuurdugle Shabeellaha Dhexe ka tirsan maalmihii la soo dhaafayna tuulooyin hoostaga la sheegayay in dagaalamayaashu kooxdu ay ku soo daabulayeen rag hubaysan oo aanan la ogeyn halka ay sida gaarka uga soo wadeen. Jubbaland Koonfur Galbeed ayaa inta badan waxa iyagana ku sugan kooxdan oo la sheegay in qayb ka mid ah dadka ka dagaalamaya gobolka Hiiraan iyo Shabeellaha gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ay ka soo kaxeeyeen sidoo kalena halkaas ay ku dagaalgelinayaan. si rasmi ah looma oga halka sida gaarka ay uga keeneen laakiin dhinaca kale waxa socota duqeymo toos ah oo lagula beegsanayo xarumaha ama fadhiyada ay ku leeyihiin deegaanada gobolka Shabeellaha Dhexe iyo sidoo kale gobolka Hiiraan. waxa maalmihii la soo dhaafay la tilmaamay laakiin maleeshiyaadkan in laga keenayay inta u dhaxaysa gobolada Galgaduud iyo Mudug halkaas oo fariisimo ay kooxdu ku leeyihiin sidoo kalena ay ka soo daabulaan maleeshiyaadka ugu badan marka ay gaaraan ama ay doonayaan inay weeraraan meelaha ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ku sugan yihiin. dhinaca kale saaxiibayaal dagaalkaas intaas kaga baxno magaalada Kismaayo iyo deegaano kale oo hoostaga gobolka Jubbada Hoose saaka waxa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq ciidan oo aad u xoogan. Kismaayo saaka ciidamadii ugu badnaa sidoo kalena aad u hubaysan ayaa la sheegayaa inay ku gaafureegayaan gudaha magaalada taas oo aanan la ogeyn ilaa iyo hadda waxa sida rasmiga ah ay uga damacsan yihiin laakiin waxa halka ku sugan xubno ugu sarsareeya kuwa mucaaradka gaar ahaan golaha samata bixinta iyo sidoo kale golaha guud ahaanba maamulada Jubbaland iyo
Puntland oo ka qayb galaya shirka golaha mustaqbalka Soomaaliyeed oo ka furmaya saacadaha soo aadan gudaha magaalada Kismaayo oo xarun ku meel gaar u ah dowlad goboleedka Jubbaland. halkaas maalinimadii shalay madax kala duwan ayaa ciidamo la tagay oo uu ka mid yahay Saciid Cabdullaahi Deni oo xalay ciidamadiisa ilaa iyo hadda la sheegay inay difaaciyo kaga jiraan gudaha magaalada sidoo kalena difaacayaan madaxweynahooda. sidoo kale waxaa jira ciidamo kale oo dheeraad ah oo saaka la sheegayo in lagu arkayo wadooyinka waaweyn ee gudaha magaalada Kismaayo ee dowlad goboleedka Jubbaland kuwaas oo aanan ilaa iyo hadda si rasmi ah looga ogeyn halka sida gaarka ah ay oga amar qaataan. laakiin waxaa la warinayaa in saraakiisha Jubbaland ay wataan ciidamadan sidoo kalena ugu talagaleen inay sugaan kana qayb qaataan ammaanka guud ee deegaanada gobolka Jubbada Hoose inta uu socdo shirkan muddada 3 maalmood ah la sheegayo inuu ka soconayo gudaha magaalada Kismaayo. halka xogaha qaar ee aynu helayno ay tilmaamayaan in kaliya 2 maalmood oo maanta ilaa iyo berito uu socon doono ama berito iyadoo ay jimco tahdana la sheegayo in sabtida la soo gabagabeyn doono. kulankan waxaa sida gaarka ah is-aragga koowaad la sheegay in diiradda lagu saari doono arrimaha la xiriira gudoomiyaha ku-xigeenkiisa iyo xogayaha golaha mustaqbalka ama qaab dhismeedka golaha mustaqbalka in looga hadlayo oo waliba cidda noqonaysa majaangoynta siyaasadda cidda markaasi lahaan doonta ayaa la magacaabi doonaa oo ay soo saari doonaan. kadibna waxaa la guda geli doonaa ajendayaasha rasmiga ah ee loo tegay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka dowlad goboleedka Jubbaland. arrimaha doorashooyinka ayaa ugu weyn qodobka ah ee ay ka hadli doonaan dhinacyadan inkastoo aan ilaa iyo hadda si rasmi ah loo ogeyn waxyaabaha kale ee dheeraadka ah ee waliba ay soo hadal qaadi doonaan maadaama ay jiraan dhaqdhaqaaqyo xoogan oo waliba dhinaca siyaasadda ah oo u dhaxeeya golaha mustaqbalka Soomaaliyeed oo garab ka helaya madaxweyne hore Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo dhankiisa ku sugan gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho maalmihii la soo dhaafay ilaa saacadihii ugu dambeeyayna uu kulamo kala duwan la qaatay madax ka socotay qaramada midoobe oo ugu horeeya xogayaha guud ama xogayaha guud ee qaramada midoobe arrimaha Soomaaliya. waxaa la warinayaa in kulamadaasi oo idil ay noqdeen kuwa natiijooyin ay ka soo bixi karaan laakiin ilaa iyo hadda golaha mustaqbalka shirkooda ma uusan furmin. galabnimada maanta ayaana la filayaa inuu si gaar ah uga furmo gudaha magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka dowlad goboleedka Jubbaland. isla dhinaca kale madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ah madaxweyne hore ayaa ku wajahan gudaha magaaladaas oo isagana la tilmaamay in uu ka ambabaxay gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. waxaana la warinayaa in isagana uu ka caga dhigtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo oo xarun ku meel gaar u ah dowlad goboleedka Jubbaland. halkaas ayaana si weyn loogu soo dhaweeyay madaxweyne Sheekh Shariif. maalmihii la soo dhaafay halkaas waxaa siyaabooyin kala duwan u gaaray siyaasiyiinta mucaaradka kuwooda ugu xoogan. maalinimadii shalay kuwii ugu badnaa ayaa tegay oo ay ku jiraan ra'iisul wasaarayaal hore Xasan Cali Khayre, Saacid Shirdoon, xildhibaan Cabdiraxmaan Shukuur Warsame oo golaha shacabka ka tirsan, xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya aqalka sare iyo sidoo kale golaha shacabka. waxaa sidoo kale halkaa gaaray xubno siyaasiyiin ah oo iyagana mucaarad ah oo maalinimadii shalay maalinta ka sii horeysaba iska xaadiriyay gudaha magaalada Kismaayo. xalay kulamo gaargaar ah ayaa dhacay oo Axmedow uu la qaatay xubnaha siyaasiyiintaasi ah sidoo kalena isla waxgaradka gudaha deegaankaasi Kismaayo ayaa la tilmaamay in kulamo ka dhaceen kuwaas oo ururada bulshada rayidka iyo xubnihii mucaaradka halkaas tegay oo ra'iisul wasaarayaasha hore ay ku jiraan xildhibaanadii golaha shacabka iyo kuwa aqalka sare ay ku jiraan ay la qaateen guud ahaanba. arrimaha oo looga hadlay waxaa la tilmaamay inay tahay in qof walba looga mahad celiyo arrimahan sidoo kalena la sheegay in ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre kulamadii uu la qaatay bulshadu ay si weyn kaga mahad celinayeen arrinta la xiriirta kaalintii mugalahayd uu ka soo qaatay dib u dhiska dalkan. sidoo kale ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa ku jira oo isagana looga mahad celiyay dadaalkiisa nafurimada leh ee uu ku badbaadiyay dalka. xildhibaano kale ayaa jira iyagana oo kulamo kala duwan ururada bulshada rayidka ee Kismaayo la qaatay laakiin saaxiibayaal kulan weynaha aadka loo wada sugayo waxa uu furmi doonaa galabnimada maanta iyada oo dadku inta badan ay ka dhowr sugayaan waxa kulanka ka soo bixi doona ma wuxuu noqon doonaa kii laga jaangooyo ama lagu soo jaangooyo Kismaayo badbaadada mustaqbalka Soomaaliyeed iyo ama wuxuu noqon doonaa midkii lagu burburiyay dowladnimada Soomaaliya. saaxiibayaal guud ahaan intaas ay jeclaan dhamaadka haddii aad nala soo gaarteen waxaan ka codsanaynaa inaad saaxiibada la sii wadaagto qaybta hoose faladan aragtiin ugu wadaagtaan mahadsanideen.